maxaa ka jira xaqaa'iqda in adduunku dhammaad yahay 29 Abriil oo ah bishan aan ku jirno in adduunku uu ku soo socdo dhagax xajmigiisu weyn yahay sida warbaahinada adduunku hadal hayaan. Assalaamu calaykum. waxaad ku soo dhawaataan mar labaad kanaalka Kaahiye. dhagaxan oo lagu magacaabo 1998 oo arto ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inuu leeyahay 4 kiiloomitir. qiimeyntii ugu dambeysay waxay sheegaysaa dhagaxan inuu leeyahay kalabar buurta Everest. NASA waxay dhaheen dhagaxan wuxuu u soo gudbi karaa 29 Abriil oo ah bishan aan ku jirno dhulkan aanu ku noolnahay. dhagaxan wuxuu ka fog yahay dhulka 3.9 milyan miles, taasoo ah 16 jeer qiyaas ahaan intay isku jiraan dhulka iyo cirka. NASA waxay codeeyeen dhagaxan lagu magacaabo 1998 oo arto inuu aad u khatar badnaan doono. dhagaxan wuxuu leeyahay 4 kiiloomitir. dhagax kasta oo la eg 1 kiiloomitir oo hawada meereysanaya lama barbardhigi karo hub kasta oo bani'aadamku sameeyaan. dhagaxan waxaa laga yaabaa in uusan burburin nolosha aadanaha, balse wuxuu geysan karaa khasaare ka badan 10 jeer khasaarihii loo geystay Hiroshima iyo Nagasaki. dhagaxan waxaa laga yaabaa in uu abuuro boor aad u weyn kaasoo qarin kara iftiinka qoraxda. haddii qoraxdu qarsantana ma jiri doonto iftiin soo gaara adduunka. dhulka wuxuu isku bedeli doonaa meel aad u barafsan. haddii xaaladdu sidaa ku socotana nolosha dhulka way soo dhammaan kartaa. waxay kaloo cilmi baaristu sheegaysaa haddii dhagaxan uu ku dhaco meel bad ah waxaa ka dhalan kara hirar gaari kara 100 fiit, kaasoo saameyn kara dhulka xeebaha ah. dhagaxuunta yaryar ayaa la sheegaa in 500,000 oo sanaba mar ay ku soo dhacaan dhulka. laakiin dhagaxuunta kuwooda 5 kiiloomitir ah ayaa la sheegay inay ku soo dhacaan dhulka 20 milyan oo sano hal mar. balse diinteennu waxay noo sheegaysaa in adduunkan dhammaanayo markay dhacaan mucjisooyinka waaweyn oo nabigeena sallallahu calayhi wasallam noogu sheegay, sida inuu soo bixi doono masiixu dajaal, inuu soo bixi doono nabi ciise calayhi salaam, inuu soo bixi doono mahdigii, inuu soo bixi doonaan yaajuuj iyo maajuuj. balse calaamadihii yaryaraa uu nabigu sallallahu calayhi wasallam noo sheegay ayaa maanta u muuqda kuwa saa'id u soo ifbaxaya, sida calaamadahan soo socda: in war laga sheegay galbeedku uu daqiiqado gudahooda ku gaaro 4 cirif ee adduunka, sida maantay internetyada ay noo fududeeyeen in warkeenu uu gaaro meel saa'id u sareysa. in la qabsan doono boqortooyada Basandiiniga oo ah Turkiga, gaar ahaan Istanbul, waxaana la qabsaday 800 oo sano dhimashadii Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam kadib, iyo in la qabsan doono dhulka Romania oo maanta loo yaqaano Talyaaniga, balse weli lama furan dhulkaasi. sidoo kale Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in carabtu ay isku faani doonto daaraha ugu dhaadheer adduunka, sida maanta aan aragno in dabaqa ugu dheer adduunku uu ku yaalo Dubai. sidoo kale dabaqa la soo tartami doona ayaa sidoo kale ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. sidoo kale in qofku uu heesaha ku dhageysan doono qalabka dhagaha, sida maanta aan aragno guri kasta waxa yaal qalabka dhagaha ama earphone-ka, balse qalabkaasi waxaa la soo sheegay xilligii nebiga. sidoo kale inuu badanayo dilka isagoo ruuxu garanayn waxa lagu dilay, ruuxa wax dilana uu garanayn waxa uu ku dilay ruuxa kale. in masaajidadu noqon doonaan kuwa aad u qurux badan, dabaqyo ka samaysan, balse qalbiyada dadku ahaan doonaan kuwa aad u wasaqaysan. inuu waqtigu noqon doono mid aad u dheereeya sida maanta aan aragno. sidoo kale wuxuu Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam noo sheegay in cimiladu isbedeli doonto, sidii in meeshii qabowga ahayd noqon doonto kuleel, iyadoo meeshii kuleelka ahaydna noqon doonto qabow, sida maantaba aan adduunka ku aragno in meeshii qaboobeed ay noqonayso kuleel, meeshii kuleeleedna dalalkii kuleelaa qaarkood ay ka da'ayaan maanta baraf. sidoo kale in gabadhu u muuqan doonto mid asturan oo ay qabto xijaab, balse aysan ahayn mid asturnayn.
waxaan idinkaga sii tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.